Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso. Kusoo dhawaad qaybtii 13aad ee sheekadii jar iska xorkii yaraay. Waana qaybtii ugu dambeysay ee sheekadii jar iska xorkii yaraay. qaybta 12aad sheekada waxay inoo joogtay Siraaj ilaa iyo hadda raadiyowgii ayuu kula hadlayaa dayuuradii cirka maraysay wuxuuna leeyahay mana arkaysaan soo eega halka uu dabka ka shidan yahay soo daga dhaqsada halis baynu ku jirnaa. intaas waxay noogu ekaay qaybtii 12aad ee sheekadii jar iska xorkii yaraay. qaybta 13aad sheekada waxay ku bilaabmaysaa dabadeed intaanay Eskimowgii mar labaad soo gaarin yaryarkii ayaaba dayuuradda guuxeeda cirka iyo dhulkaba qabsatay ayada oo qunyar u soo degaysa. markii ay dayuuradii arkeen Eskimowgii cagaha ayay wax ka dayeen. dayuuradii iyadu markii cagaha dhulka soo dhigtay baa dooliyihii ka soo degay, kadibna waxaa ka soo daba degay Anwar aabihii oo asaga qudhiisaba soo aada xaggii inankiisa. halkaasay labadii isdhalay kalgacal iyo xiiso iskugu soo boodeen, isagoo odaygii dhahay eebba mahad leh oo adinkoo nabad qabo aan idin arkay. intaasi waxay noogu dhammaaday qaybtii 13aad ee sheekadii jar iska xorkii yaraay, waana qaybtii ugu dambeysay ee sheekadii jar iska xorkii yaraay. inta aanu ku kulmi doonno sheeko tan oo kale ah, sidaas iyo nabadgelyo.